marka wuxuu sheegay qiso uu ka soo warinayay Sheekh Cabdilcaziz bin Baas rahimahullah ta'ala wuxuu sheekhu wuxuu dadka ku dardaari jiray inay saddex duco ku ducaystaan marka ay sujuudsan yihiin saddex duco inay ku ducaystaan marka ay markay sujuudsan yihiin ducada koowaad waa maxay wuxuu yiri waxa aad oranaysaa Allahumma inni as'aluka husna al-khatima ilaahu waxaan ku weydiisanayaa khaatimo wanaagsan ducada labaad waxaad oranaysaa Allahumma irzuqni tawbatan nasuhatan qabla al-maut ilaahu tawbad nasuha ah igu arsaaq intaana dhiman ka hor saddexaadna waa yaa muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik ilaaha qulubta gediyo qalbigayga diintaada ku sugan markaan u fiirsaday saddexdan duco ikhwaani waa saddex duco oo aad iyo aad u muhiim ah nolosheenana si laxaad leh oo qoto dheer u taabanaya sababtu waxay tahay waxa intuba ay ku dulmeeraysanayaan arrin kaliya oo ah inaad adduunyadan ka hayaato oo ka tagto adigoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq ku waafajiyay adigoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raali yahay gaayada qofka bila aadmigi uu nool yahay qofka muslimkii waa taawiya maanta ikhwaani adduunyadan fitankeegi waa farabatay waxa batay arrimaha la isku haysto بين المسلمين dhexdeeda xaq iyo baatilkiiba in marka qaar kood sida loo kala sooco ay adag tahay in ka soo dadka ahlu xaq iyo ahlu basiira ilaahay mar walba xaq garansiinayo laakiin adiga maxaa lagaga baahay ka shakhsi ahaan ahamiyada ay ciidan leedahay bay garansiisay waxa lagaga baahay adiga shakhsi ahaan akhi naftaada badbaadi waxa laga yaabaa nin maanta oo dhan siyaasad ka sheekeynaya siyaasadii Soomaaliya ka sheekeynaya dagaalada qabaa'isha Soomaalida dhex yaala ka sheekeynaya waxa adduunka ka dhacayo ku xiiqayo oo fadhi dirir ku xiiqay ayaa haddana naftiisa dayahay akhi adigu haddaad maanta Ilaahay aad la kulanto oo taadii noqoto oo hooyga aakhira aad ku hooyato ma leedahay Ilaahay raali bibi ma sheeganaysaa waji aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad kula kulanto waji wanaagsan oo Ilaahay aad kula kulanto ma sheeganaysaa naftaada badbaadi intaana kala ka sheekay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya ayaa maalinta qiyaamaha soo taagay Ilaahay qabiilna soo wada urun maayo reer hebel baa la wada xisaabinaya la oran maalinta qiyaamaha loo xisbigii reer hebel baa la wada xisaabinaya ama jamaacadii reer hebel baa la wada xisaabinaya ama gobolkii reer hebel ama degmadii reer hebel oo kullum aatihi yawm al-qiyamah qof walba maalinta qiyaamaha إلهي سبحانه وتعالى يسوي كلية وعد الصعطة يعد الدوديسة يعد دفاع عيسى أن يجنبوا مالت قيامها إلهي سبحانه وتعالى يسوي تاجين أهمية الدعوة كنا إليهين وحكى أن بقى عضيان إلى إلهي بريسو حسن الخاتمة يبقى خاتمة يكون هذا الشيء ضد إخواني يو أهل العبادة ها حدنا أنتي أنا اللي منكهر يسبدلي وعقيدة دي بدلنتي أو إن عبادة دي أي بدلنتي أو سنه كله إحنا دد بأشرا مظالم تسكيل إن تدخل ظلميان لكن قبل الموت مظالم بدن كل عين اللهم يسلك حسن الخاتمة يا إخواني دد بع نفط أي كبح ذي يوم سجود دد بين نفط كبح ذي يدو كتابك إلهي أخريه وهو فريه dad bay naftu ka baxday iyagoo kacbada dawaafay dad bay naftu ka baxday iyagoo Carafa taagan Sheekh Maxamed Rashaad oo garan ka rahimahullah ta'ala dad bay naftu ka baxday iyagoo sooman ikhwaani adii biritoole markay maalintaadi noqoto geeridu maxay kugu noqotaa maadoo Ilaahay caabuday maadoo Ilaahay ka baqanaya adigoo iska ilaaliyay xuquuqda dadka bini'aadamku ay kugu leeyihiin adigoo madaalimta iska ilaaliyay adigoo dhiig muslim aan gacmaha la gelin adigoo hanti muslim aan gacanta la gelin adigoo cirdi muslimin aan gacanta la gelin isoo waxay ku iman doontaa adigoo waxa soo noqdo looqaystay xusnul khaatima ilaahay mar walba weydiiso khaasatan anta fi sujud takalana waxa tiraahdaa sidoo sheekhu yiri ilaahu uu arsaaq allahumma subhanahu tawbatan nasuha qabla al-maut tawbada nasuhada waa maxay ikhwaani waa toobad lagaaga meeyo oo lagaaga dhaqo dunubtii aad gashay
وأديكو صافية ربك أجي سبحانه وتعالى كو أبورتي الله كنتوية توبة نصوحة إلهي بقى حنو قال لي قف ولو بالآذن وقلدما ولكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له قف الذنب كتوبة كنا وسيدي قف أن ذنبي بالجنب توبة النصوحة الذنوب تلقو نقا الذنوب تلقو ما يراه سيئاتك أيها لقو ما يراه وحليل إله أنت آنا لمن يجريد أنا إيمان يقولك آخرة أنا كو أرورين إله توبة يوافج حتى لحظة وضم بيسين ولا شارع هنقطه إله يوافج ومر الله على مركز نفسك عبحضه والوك الرقاق خاص شو كان كايدو والله حري سوق كايدو والله حري عمل صالح حد بمجره اللهم تعماشا حسنات كوغا يكون صعون أيام أنت محيط ولي إلا حتى اللي بنشاهد كدي مساجد كان تذكير سوا كاملة حواليها المحل العادي أقولني أيها كاملة قولي هذا قونت أقول استباع كاملة إن عيل بيا وضدك أبوك ضيبا كاملة ولد صالح وكوس الدعوني أيها كاملة لكن أعماشي أدو عاد إسهانت أو سميني سي ولو كريتي تكلنا ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إله قلوبك قديو قلبك الدين هذا تصل سلف كوي حورين جرين إياك فإن دين الله واحد إياك والتلون فإن دين الله واحد تجروا له نقول تجروا له صوت غنى تجروا له نقول هيس بدلين ما نبغى يعني سيد الدبيشة حقاقة دين إلهي كجا إمام دين إلهي هو مد هيس بدلين ثبات كوي دين إلهي واحد شريف ما نوارك يسي ما أنت هناك وارك دين إلهي سبب شو سنة الشريف سنة وارك يسي ما أنت بدعه وارك دين إلهي وامد سنة ذي سبب شو بس الله عز وجل إنه دمانتين بحسن خاتم الوار ساقو إنه توبتنا صحيح الوار ساقو إن دين تيسنا نوصه إنه مسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى أن نذكر الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله